Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa saacadaha soo socda si xoog ah xarunta nabad sugidda ku geynaya agaasimaha ku-meel gaarka ah ee uu magacaabay hay'adaasi ee Bashir Goobe si uu shaqadiisa u bilowdo. Daawada muuqaalka Shargare Lexar page-kana follow garee si uu u gaaro asxaabtaada una helo saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale. Mahadsanid. khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha muddaxileedkiisa oo dhamaaday ee Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ah Maxamed Xuseen Rooble ayaa yeeshay waji cusub oo horseedi kara dagaal iyo in gacan la isku tago. Kadib wadahadallo saacado qaatay oo lagu dhexdhexaadinayay Rooble iyo Farmaajo oo fashilmay ayaa xalay wareegto uu soo saaray. Farmaajo waxa uu Fahad Yaasiinkii shaqo joojinta lagu sameeyay ugu magacaabay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha. sidoo kale Farmaajo ayaa si ku-meel gaar ah agaasimaha NISA ugu magacaabay Yaasiin Fari oo hore u ahaa agaasimaha NISA ee gobolka Banaadir, isagoo Cabdisaciid Muuse Cali u magacaabay inuu noqdo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka. Wareegtada Farmaajo oo markii hore lagu baahiyay baraha bulshada ee warbaahinta dowladda ayaa durbadii laga saaray kadib amar ka soo baxay Rooble, taas oo uu fuliyay Wasiir Dube oo hadda u muuqday inuu wareegsaday dhanka Rooble. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo saaray qoraal jawaab u ah qoraalkii ka soo baxay madaxweynaha muddaxileedkiisa oo dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ku aqbalay shaqo joojinta lagu sameeyay Fahad Yaasiin uguna magacaabay xil cusub. Rooble ayaa sidoo kale warar culus ku qaaday Farmaajo, isagoo ku eedeeyay in tallaabooyinka uu qaaday yihiin kuwo lagu carqaladeynayo in si dhammaystiran loo gungaaro kiiska Ikraan Tahliil Faarax. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu soo dhaweynayaa aqbalaadda madaxweynaha ee shaqo joojintii agaasimihii hore ee NISA Fahad Yaasiin. Rooble ayaa faray agaasimaha guud ee ku-meel gaarka ah ee NISA Sareeyo Guud Bashiir Maxamed Jaamac in uu si degdeg ah u bilaabo shaqadiisa. Sidoo kale saraakiisha hay'adda NISA ayaa waxa uu ku amray inay si buuxda ula shaqeeyaan agaasimaha cusub. qoraal ka soo baxay midowga musharaxiinta ayaa waxaa lagu cambaareeyay tillaabada uu qaaday madaxweynaha muddaxileedkiisa oo dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyaga oo sheegay inay tahay mid baalmarsan sharciga, sidoo kalena lagu carqaladeynayo howlaha doorashooyinka. waxa ay sheegeen in arkaan tallaabooyinka uu qaaday Farmaajo mid lagu carqaladeynayo cadaaladda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee ku aadan baaritaan daahfuran iyo cadaalad in la marsiiyo kiiska Ikraan Tahliil. waxaa jira warar kale oo soo baxay oo sheegaya in taliyaha ciidanka xoogga dalka Odawaye Yuusuf Raage oo saraakiisha ciidanka ku amray inaysan qayb ka noqon isla qabsiga jira cidna isla safan Farmaajo oo taas ku qancin, ayaa la sheegay inuu Yaasiin Fari u magacaabay si ku-meel gaar ah agaasimaha NISA si uu u cabsi geliyo Odawaye Yuusuf Raage oo ay qaraabo yihiin. waxaa kale oo jira warar kale oo sheegaya in agaasimaha qaybta warbaahinta ee Villa Soomaaliya laga saaray adminka page-ka SNTV oo horey uu qayb ugu maamulayay si uusan qoraal Farmaajo arrimihiisa ka hadlay ugu soo qorin. ila wareedyo ku dhaw xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sheegaya in Rooble uu qorsheynayo in saacadaha soo socda si xoog ah xarunta nabad sugidda ku geeyo agaasimaha ku-meel gaarka ah ee u magacaabay hay'adaasi ee Bashir Goobe si uu shaqadiisa u qabsado. xaaladda waxay u muuqataa inay faraha kasii baxayso, khilaafkan uu sii xoogeysanayo, balse waxaan la ogaan karin halkay ku dambeyn doonto. shacabka Muqdisho waxay muujinayaan cabsi xoogan oo ay ka qabaan inuu dagaal dhaco oo ay dib u soo laabtaan ciidankii badbaadada qaran ee hore wadahadalka looga saaray Muqdisho. haddaba sidee u aragtaa tillaabada uu qaaday Farmaajo iyo jawaabta Rooble?